madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu noqday bartamaha Soomaaliya halkaasi oo uu doonayo inuu dib u sii ambaqaado dagaalka lagaga soo horjeeda al-shabaab. Howlgallada al-shabaab ayaa imanaya iyadoo Soomaaliya ay hub helayso sidoo kalena ay soo kordhayso xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya dhexdooda. Haddaba arrimahan iyo sida howlgallada dagaalku ay u saameynayaan ayaa wariyaha VO-da Jacfar Kukaag waxa uu ka waraystay Cabdiqaadir Cali Dige agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha waxa uu dib ugu soo noqday magaalada Dhuusamareeb oo bilihii la soo dhaafay uu horay halkan intii uu joogay uu ka hagayay howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed looga xoreynayay galmudug gobolada mudug iyo galgaduud hadda uu madaxweynaha uu joogo Dhuusamareeb focusku waxa uu yahay oo howlgallada xoogooda ka socdaan gobolka mudug ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna qorshahoodu waa in dhawaanahan halkaas lagu soo gabagabeeyo mudugna ay noqoto meesha ugu dambaysa oo ay shabaab ay ka joogaan areadaas marka laga baxo way dige dagaaladii kuwan ka horeeyay Hirshabeelle ka dhacay gobolka Hiiraan barigiisa awood intaan la eg la isugu ma geynin haddana si fudud baa al-shabaab dhulkaas looga xoreeyay iyadoo awood inta la eg ay ka jirto galmudug madaxweynihii uu ku sugan yahay inta in ay qaadato gacan bidxayn iyo hagardaamo baa jirta mise dhibaato kale baa taagan Jaafarow dagaalkan sida la socotidba wuxuu ku bilowday kacdoon shacab oo xoogiisa Hiiraan ahaa dadka deegaanka oo qof walba uu ku jiro ayaa dagaal toos ah wuxuu dhaxmaray shabaabka iyo dadkii deegaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna qayb ay ka ahaayeen dagaalkaas marka maadaama kacdoonku bilow ahaa iyo dadka Hiiraan degan sida kaalinta weyn ay uga qayb galeen dagaalkaas effectiga uu yeeshay ayada qayb ay ka tahay haddeertan laftirkeeda goboladan galgaduud iyo mudug uu dagaalka hadda xoogiisa ka socdo waxyaabo badan oo horumar ah oo laga sameeyay jira deegaano badan oo baaxad leh iyo marino badan oo ay shabaabka isticmaali jireen dadka Soomaaliyeed ku dhibaateyn jireen oo laga xoreeyay ayaa jira laakiin awoodda dagaalka ka socda halkan oo mudug iyo galgaduud ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hogaankooda leh marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddii ay u istaagaan ama kacdoonkaas bilowgiisii siduu ahaa uu dhaco shabaab maalin dalka Soomaaliya ma sii joogi karo marka kaalin weyn shacabka ayaa qayb ka ah xoreynta ama ciribtirka qawaarijta cunaqabatayntii hubka waa la qaaday sida aanu ka warhayno hubba wadanka soo galay baa la leeyahay sidee buu hubkaasi idinkaga caawin karaa dagaalka hadda dawladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto al-shabaab si weyn sababta dawladda federaalka Soomaaliya ay waqti iyo wax kasta oo haysay isugu geysay in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka ayaa waxa muhiimadooda koobaad ahayd in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay helaan awood ka weyn awoodda qawaarijta ama kooxaha argagixisada ah oo hadda ama ka hor intaan cunaqabataynta la qaadanin wiilka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dalkiisa u dagaalamaya uu qori ka haysatay halka kan qawaarijta ahna mid lamid uu sitay qorshaha marka iyo ujeedka laga damacsanaaba markii hore wuxuu ahaa dalkan Soomaaliya in wax argagixis ah laga ciribtiro xuduudihiisana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay awood u yeeshaan in ay sugaan amnigiisa xiisadda hadda soo korodhay ee ka dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya maxay ka bedelaysaa dagaalkii dawladdu ay kula jirtay al-shabaab waxba kama bedelayso culeysyo waa jiri karaa laakiin sida madaxweynuhu hore u sheegaba dawladnimada iyo Soomaaliya madax bannaan awood u leh xuduudaheeda inay difaacdo in la helo la gaaro waxa hortaagan caqabada koobaad ku ah waa argagixisada al-shabaab oo dawladnimada curyaamiyay horumarka Soomaaliya ay hiigsanayso ciidamadeeda xoogga dalka ay ku dhisa lahayd awoodda cadawga gudaha ee hortaagan ugu weyn inuu yahay argagixisada focuska koobaad iyo meesha ay diiradda dawladda federaalka Soomaaliya ay saaraysan inuu yahay in argagixisada laga adkaado Jacfarow
ma dhacdeen ama sababaha ay ku dhacaan in dhul Soomaaliyeed ama faragelin shisheeye lagu sameeyo ama dawlado kaleeto ama Ethiopia ha ahaato ama dawlad kaleeto ay damacdo waxay ku yimaadaan burburka qarannimadeena ku yimid argagixisada dalkeena joogta ee hortaagan in dawladnimada la xoogeeyo in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku filnaato dalka marka argagixisada ayaa cadawga koobaad ah oo gudaha ah cadow kasta oo dibadda ahna Soomaaliya waxa uu soo hawaysto waxa uu ka dhashaa ishaysadka dadka Soomaaliyeed iyo argagixisada dhibaatada iyo saameynta ay ku leedahay dawladnimada Soomaaliyeed iyo in ciidan Soomaaliyeed oo xoog leh oo xuduudaha dalka suga in la helo marka diiradda iyo muhiimadda koobaad waa argagixisada Soomaaliya in laga xoreeyo madaxweynaha Soomaaliya wuu hanjabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuu hanjabay awoodda dawladda Soomaaliya waan garan karnaa iyay tahay cidda dawladda federaalka Soomaaliya ay hadda isku halaynayso haddii uu qarxo dagaal u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya madaxweynaha iyo sida sheegtay ra'iisul wasaaruhu waxa ay sheegeen ayaa waxay tahay dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed taariikhda leh in dalkooda iyo dadkooda difaacaan iyaga ay tahay isku halaynta dawladda federaalka Soomaaliya ay qabto midda kaleetana ay muhiimadda koobaad dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay cadeeyeen ay tahay inta ka kamid ah dhulka Soomaaliyeed inta qof Soomaali ah uu nool yahay inaysan ogoleen in dal kaleeto uu ku xadgudbo ama si gardaraha uu ku qaato marka su'aashaada ah isku halaynaya dadka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliyeed isku halaynaysa shacabka Soomaaliyeed isku halaynaysa way haddii aan u soo laabanno dagaalka al-shabaab goorma ayaa la sheegi karaa maadaama madaxweynihii hadda uu ku laabtay galmudug mudug iyo galgaduudna weli al-shabaab lala daala dhacayo oo muddo dheer ay qaadatay intii la filayay ka badan ah goormaad qiyaasaysaan in goboladaas al-shabaab laga cirib tiri doono qiyaas ma aha Jaafarow mudug maanta shabaab waxay ka joogaan tuulo kamid ah oo hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dul taagan yihiin waxa ciidamada ay ka shaqeeyeen oo la gaaray in marino kala duwan iyo deegaano kala duwan la xoreeyo hobyo iyo xaradheer ayaa loo kala gooshaa si nabad ah oo argagixisada laga xoreeyay magaalooyin badan oo Camaara iyo Caad iyo magaalooyinka hadda sheegay kamid ah ayaa xor ah marka mudug waa xor inteeda badan galgaduud deegaano badan oo argagixisada ku dhibaateeynaysay maanta waa xor deegaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dib uga baxeen dalka haddana dib ay ugu soo noqdeen marka waxaan rajadu ay tahay qorshaha iyo howlgalka socdana uu ku saleysan yahay in muddo kooban oo aan waqti badan ahayn in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo gabagabayaan dagaalka wajiga koobaad oo halkan ku soo dhamaanaya way ugu dambeyntii waxa qorshuhu yahay in ciidamada ADMIS ay ka baxaan Soomaaliya sidaan ka war hayno goobtii ugu muhiimsanayd ee wadanka oo ahayd madaxtooyadii Soomaaliya amaankeedii ciidamo Soomaaliya baa kala wareegay guud ahaan bixitaanka ADMIS halkee buu marayaa meel fiican uu marayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay la wareegeen qiyaastii 6 goobood oo guud ahaan dalka Soomaaliyeed ah oo bara kala duwan ciidamo kala duwan oo ADMIS ka socda ay joogeen oo madaxtooyada ka mid tahay qorshahan waa in December 2024 askariga ugu dambeeya ee ADMIS ah uu Soomaaliya ka baxo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay ku filnaadaan amniga guud ahaan dalka Soomaaliya xuduudihiisana amnigiisa ay dhowri karaan sidaas uu qorshuhu yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cali Dige agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya uu waramayay Jaafar Kookay